inkastoo halkan oo xeebta Liido laba habeen ka hor uu ka dhacay weerar dad badan ay ku dhinteen haddana waxaa jiri doona isbeddello saldhig u ah dareen wax kastoo halkan ka jiray dib u soo celin kara maadaama xeebtan ay ka mid tahay meelaha qurxoon ee muujinaya bilicda Muqdisho iyo dadka Muqdisho halkan raasumaal uga haysta meelihii qurxoona ee bariisamaadkii loo dalxiistagi jiray socdaalkaygan waxaan ugu koorgalayaa waxa laba maalin kadib Liido iska bedelay hadda waxa aan tagaynaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho oo habeen ka hor uu ka dhacay weerar dad badan ay ku dhinteen ujeedkeenu waa ogaanshiyaha xaaladda hadda Liido ka jirta iyo saameynta weeraradaas ay ku yeesheen boqolaal shacab oo xilligan oo kale u damaashaad iyo dalxiisaga jiray xeebta Liido ee magaalada Muqdisho markii iigu horeysay ee aan halkan imid waxaan la kowsaday jawi ii xusuusinayay laba dareen oo mid uu yahay murugadii halkan ka dhacday iyo xilliyadii aan halkan u nasiina imaan jiray dadka aan halkan kula kulmay waxay ii muujiyeen dareen hadalkooda aan kaga dhadhansanayay ku dhiiranaan geesinimo ay ku dheehan tahay waa hubaal saadaashu ay boqoleyda marka lagu cabiro boqol ugu dhowaanayso rajada laga qabayn halkan ay ku soo laaban doonto jawigii weerarka ka hor haddana way jiri kartaa cabsi la mid ah wixii dhacay in markale halkan ay ka dhacaan haddaba yay tahay cidda looga baahan yahay ka taxadiridda ammaanka dadka halkan imaanaya shakhsi koox iyo dowlad intuba waxaan su-aashan weydiiyey Muxyidiin Xasan Jurus oo ka mid ahaa maamuladii heer degmo ee Muqdisho soo maray oo aan kula kulmay maqaayadda Beach View oo dhacda xeebta Liido ee Muqdisho wada shaqeynta shacabka iyo dawladda shacabka oo dawladda aad muddo xogaa ay sanadda arrimaha dhacay sanad shacabku aysan diirad u saarin marka waxaan leeyahay shacabku haddii aysan la mantaanoobin aysan la midoobin dawladda aysan mataqaanaa aysan aad uga xoraan waxaa dhacayso in goob kasta oo ay u nasiino tagaan iyo goob kasta oo la hormariyay inay saas oo kale dhibaato joogta loo geysto marka shacabku waxaan leeyahay inay dawladda aad uga xormaan waa inay dawladda ay la shaqeeyaan isku xirnaanta dawladda iyo shacabka waxay keenaysaa ka hortagga maamulada maqaayadahan waxay ii sheegeen inay sii wadi doonaan adeegyadii ay bulshada u hayeen mid ka mid ah dadkii aan halkan kula kulmay ayaa i weydiiyey in mar kale halkan lasoo weerari doono uma helin jawaab kaafisa waana su-aal qudheydu aan weydiin lahaa madaxda al-shabaab maadaama weerarkii hore ay sheegteen marka loo eego wixii laba habeen ka hor halkan ka dhacay iyo hadda oo aan ku sugannahay waxay kuu muujinaysaa laba farqi oo kala duwan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkan yimid weerarka kadib waxa uu bulshada ku dhiirigeliyay horumarinta noloshooda si cabsi la'aan ay ku dheehan tahay haddana dad badan ayaa aaminsan in dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta ammaanka shacabka Cabdinaasir Maxamed Cali Home Cable TV xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.